marka dib loo xasuusto qisada niyad-jabka leh ee la xiriirta Iker Casillas iyo noloshiisii kooxda Real Madrid hubaal qalbiyo badan ayaa murugoon doona ma ahayn wax aynu sugaynay jariya markii aan baranay magaciisa waxa uu ahaa golhayo adduunka oo dhan laga xushmeeyo xariif ayuuna ku ahaa badbaadinta shabaqa ilaa lagu tilmaamo kii ugu tafsanaa ee golhayo u noqda qaranka Spain xirtayna maaliyadda kooxda boqortooyada Casillas xitaa wuxuu ka mid yahay xidigaha aan mucaaradka yeelan waxaana uu sidoo kale ahaa halyeeyga Real Madrid ee qaranka Spain waxaana uu milkiyay qabtihii ugu wanaagsanaa Spain 20 sano ee la soo dhaafay ciwaan ahaan halyeey ilaa halka ugu hooseysa micnuhu waa halyeegii hore ee hadda eberka noqday waxaana ay taasi dhacday mid ka mid ah habeenada noloshiisa haddaba maxaa ku dhacay Iker Casillas ka hor qisadiisa murugada lahayd ee lagu bahdilay Iker waxaynu eegi doonaa heerkiisii kubadda cagta sida uu u noqday halyeeyga kooxda Real Madrid ee qarankaba maxay ahaayeen ereyadii qalbiga taabanayay ee uu ku calaacalay maalinkii ugu dambeysay kooxdiisa Los Blancos heerka qarankiisa ilaa ka bixitaankiisa gigada Santiago Bernabeu xogtaasi iyo xogo kale oo cajiib ah ayaan idinku soo gudbin doonaa warbixintan inta aanan muuqaalkan gudagelin fadlan subscribe saara oo ku xirnaada channelka Banaadir Show waxaad ka heli doontaan warbixin xiiso badan oo idin xiiso gelin doona qaybta description-ka ayaan kuu soo dhigi doonaa ee fadlan booqo oo subscribe saar riixna gambaleelka digniinta si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu horeeya ee aad ku xiisaha badan kadib 25 sano oo aan difaacay mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn adduunka maanta waxay ii tahay maalintii ugu adkeyd ee xirfadeyda kubadda cagta maanta waxaan dhahayaa nabadgelyo kooxdan waxa ay siisay wax walba waxa ay qisadan ahayd mid soo bilaabatay markii aan 9 sano jiray waxaana ay ahayd markii ugu horeysay oo aan xirto maaliyadda kooxda Real Madrid anigu waan gaaray riyadayda badi qisooyinka jaceylka kuma dhamaadaan farxad waana wax la mid ah tii ka dhex dhacday Iker Casillas iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid goolhayahan cajiibka ah waxa uu ahaa cunsur ka mid ah tiirarkii ay ku taagneed kooxda Los Blancos sanado badan balse wax walba ayaa isbedelay oo si qaldan u dhacay bishii December ee sanadkii 2012 Iker Casillas oo ka mid ahaa xidigihii ugu muhiimsanaa kooxda Real Madrid ahaana kabtankii naadiga ayaa la dhigay kursiga keedka kulankii ay kooxda Moringueska la ciyaartay naadiga Malaga ciyaar qayb ka ahayd horyaalka La Ligaha waxaana ay taasi noqotay in macalinka iyo xidiga halyeeyga ah ay isku dhacaan waxaana uu macalin Jose Mourinho bilaabay inuu daandaansado Iker Casillas kuna bahdilo saxaafadda horteeda bilayor kadib xidig reer Spain waxaa soo gaaray dhaawac waxaana uu ka jabay suulka gacanta bidix ilaa uu la soo baxo Casillas qaab ciyaareed cabsi leh mana uusan noqonin qaabkii uu sanado ka hor ahaa sabab la xiriirta niyad-jabka uu kala kulmay macalinka kooxdiisa ninka isku naynaasay Special One ama midka qaaska ah iyo in Iker Casillas uusan si fiican kaga soo kabsan dhaawacii ka soo gaaray gacanta bidix waxa uu ku guuldareystay inuu farxad geliyo dhammaan taageerayaasha kooxda Real Madrid waxaana uu Jose Mourinho sii waday inuu hoos u sii dhigo tayada qabtahan cajiibka ah waana markii uu goolhayaha koowaad ee kooxdiisa u doortay joogdheer Diego Lopez intii lagu jiray sanadii 2013 waxaa talada kooxda Real Madrid la wareegay macalinka reer Talyaani Carlo Ancelotti oo shaqada ka bedelay Jose Mourinho balse Iker Casillas uma aysan noqon maalmo farxadeed waxaana uu sii gudagalay mugdi kale iyo niyad-jab ka weyn sidii hore kadib markii taageerayaasha kooxdii uu difaacayay ay ku bahdileen garoomada kubadda cagta iyagoo dalbanaya in ciyaarta laga saaro isla markaana ay ku dhaleeceynaya qaab ciyaareedkiisa xilli ay dalbanayeen in garoonka la soo geliyo Diego Lopez waxaana dhacdooyinkaasi bahdilidda ah ay dhacayeen isaga oo ku sugan halkii lagu aaminay isaga oo da'yar oo uu ku noqday goolhayaha koobaad waana garoonka kooxda uu kabtanka u yahay ee Santiago Bernabeu waxa uu sii niyad jabay si waali ah oo ma uusan kontrooli karin isbedelka ka muuqday wajiyada taageerayaasha Real Madrid ee magaciisa ku heesi jiray markii uu qalcadda Santiago Bernabeu uu cagta soo dhigo kadib ku guuleysiga 3 jeer tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League
iyo 5 jeer oo horyaalka La Liga ah ha ka reebin 16 sano uu matalayay kooxda cadcadka ee Los Blancos isagoo xirfadle sare ah waxa uu ku soo gabagabeeyay wajigabax xilli uu ahaa kabtankii kooxda u horay wax walba oo noloshiisa ah in madaxda kooxda ay la soo saxiixdeen goolhayo kale kaasi oo ahaa Keylor Navas iyo inuusan weli helin kalsoonida taageerayaasha ayaa ka yeeshay in ay lama horaan u noqoto ka tagitaanka kooxdii uu ku noqday wax walba uu yahay iminka balse xusuusnow in aysan taageerayaasha Real Madrid u sagootin si wanaagsan waxaana uu bixiyay waraysigii macsalaameynta kooxdiisa isagoo oynaya weliba xasuusanaya sida ay taageerayaasha u bahdileen isagoo wax walba u soo qabtay waqti badanna ku difaacayay shabaqa kooxdooda gacmihiisa waxaad ugu xasuusan doontaan inaan ahaa mid wanaagsan ama goolhayo xun balse waxaan rajaynayaa inaad igu xasuusan doontaan inaan ahaa shaqsi fiican xitaa haddii aan cilado lahaa mahadsanidin kumanaan jeer ayaan idin leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin idinma iloobi doono runtii waxba ma dhibayso haddii aan anigu baxayo waxaan ahaan doonaa mid ku sii qayliya hala Madrid maalmo yar kadib waxa uu madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez sir jaraa'id uu qabtay uu kaga hadlay Iker Casillas iyo waxyaabihii uu soo qabtay kooxda isagoo uga mahadceliyay bandhigiisa isla markaana macsalaameeyay kabtankii Spain ee ku guuleystay koobkii adduunka ee 2010 lagu qabtay qaaradda Madoobe Afrika waxa uu ku biiray kooxda reer Portugal ee FC Porto waxa uu noqday golayaha koobaad ee kooxda FC Porto wali waa uu xasuusanayaa waana uu jecel yahay kooxdiisii hore inkastoo aysan u muujin taageero isla markaana ay bahdileen kana direen kooxdooda waxaana uu yiri isagoo dib u go'anaya jaceylkii kooxdiisa haddii aan sii joogi lahaa kooxda Real Madrid dhamaadka xirfadeyda waxay ahaan lahayd mid cabsi leh haddii ay kooxdeedii hore isoo wacdo iguna dhahdo soo laabo dabcan anigu waan ku laabanayaa balse Real Madrid iminka diyaar uma aha inay soo celiyaan haliyeegoodii murugada kaga tagay maadaama ay Los Blancos haysato 2 gool haye oo cajiib ah oo kan ugu horeeya uu yahay Thibaut Courtois Casillas waxa uu ka mid yahay goolhayaasha kubadda cagta loogu jecel yahay mana ahan mid ilaa ay hadda lumiyay jaceylka ay u qabeen dadka reer Spain sababtoo ah waxa uu ahaa kabtankii ku hogaamiyay xulka Spain 3 xilli ee hanashada koobabka xulka qaranka kuwaasi oo kala ahaa 2 jeer oo ay ku guuleysteen koobka qaramada qaaradda Yurub 2008 iyo 2012 iyo dhacdadii koobkii adduunka 2010 lagu qabtay qaaradda Madow waxa uu qalmay in loo sameeyo sagootin weyn ama wax la mid ah muuqaaladii maamuuska ahaa ee lagu sagootiyay haliyada kooxda Barcelona iyo saaxiibadiisii Iniesta iyo Xavi oo la xasuusto in loo sameeyay sagootin aan caadi ahayn ama wax la mid ah sagootintii Francesco Totti ee kooxda kubadda cagta ee Roma amaba isku soo wada duub muuqaaladii lagu sagootiyay haliyada kubadda cagta sida Steven Gerrard, Zinedine Zidane, Roberto Baggio Dennis Bergkamp xitaa ma uusan helin wax la mid ah sagootinta haliyaya Toure ee kooxda kubadda cagta Manchester City haddaba daawade miyuu Casillas mudnaa qaabka loola dhaqmay iyo qaabkii ay Los Blancos u bahdishay mid ka mid ah goolhayaashii ugu weynaa ee kubadda cagta soo maray fadlan haddii channelkan uu ku cusub yahay subscribe saar like nagu dhiirigeliya fikradaadana inoogu reeb qaybta commentiga magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan